يعني اسكو قاب لوغو ما هذا مثلا قاب بدن اريا بدن ربحينو بدن مثلا ترمينولوجي او نوعيال كلا ايا سو ودا بخay حتى af Soomaaliga wax badan oo hadda aynaan garanaynin مثلا markaan ka soo bilowno sideetamaadkii markaan ka soo bilowno ereyo waxa ka soo baxay koonfurta oo nooc kala ah yani hibil qofkan marka la leeyahay ama xoolahan xoolo marka la rabo in la sheego oo la yiraahdo xoolahan waa xoolo oo weyd ama caata ah waxa soo baxday dhanka koonfurta Soomaaliya erey la yiraahdo khaliir neefkan khaliir waay iyo hibil waa khaliir waa ereyada marka sidaas ay u soo baxaan generationada cusub dhalinyarada ayay la soo baxaan haddaba jiilba jiilka ka dambeeyo wax walba way bedelmayaan xilligii nabilaahi ciise ka hor ilaa maalinka maanta wax badan baa bedelmaya balse oo lahjadii ugu weyneed ee Soomaalo idilkooda hadli jirtay waxay ahayd lahjada mayga مثلا markaad tagtid afarta aad tagtid ama afarta aad aragtaan aad sheekaysataan ama marka maxaa doonaysaa halkuu ka maxaa fadhaha ay ku leeyahay maxaa doonaysaa weeyaan maxaa fadhaha waxa u dhow marka dhawaaq ahaan may fadaasi maxaa fadha may fadaasi ayaa u dhow oo looga hadlo lahjada lagu hadla bakool iyo baay looga hadla ah marka lahjadaha waa lahjada ugu weyn horta hore qabso lahjado kale oo ka duwan way jiraan مثلا markaad timaado gobolka shabeellaha hoose halka la yiraahdo Soomaaliya ku taalo waxaad arkaysaa lahjad qowmiyad kamida qowmiyadaha degan halka dega iska leh qowmiyad kamida oo degan aan iraahdo waxa weeyaan waxa la yiraahdaa مثلا maxaad doonaysaa waxa weeyaan maba fahmi kartid wuxuu ku leeyahay gaami jamaasti waxba ma doonayo kolka aad doonaysa inaad tiraadin urub jabnu miiri waxba ma doonayo aniga urub jabnu miiri gaami jamaasti urub jabnu miiri salaantooda marka way ka duwan tahay lahjadaha xataa ama may ama maxaa tiri lahjadaha loo yaqaana way ka duwan tahay waxa weeyaan nabi uma dheefto waa salaan weeyaan marka waxaa la yiraahdaa marka nimankaasi waxay isku dhow yihiin ama ay walaalo yihiinba nimanka la yiraahdo بورن علي وبورن تنمك لو يقانا بورن علي يجيد علي وحوي ضد سلهويان حتى بارنتو مركل لو درو وحوي ضد هلودي اسكو ايمانايا اسيرهان اسكو ايمانايا بس كواني وي سوماليوبين halkaas bay Soomaali ku yihiin cidina ma artay kama saari karto sidii taariikhdii aan ka soo sheekeyn waaba Soomaali kuwan marka way noo xigaano waa isku DNA baynu nahay bacdima oromada iyo afarta iyo annagaba aan isku DNA aynu noqonay kadalika ayagana way kamid yihiin oo DNA goodu waa la mid waa DNA ga Soomaalida marka Soomaalinimada cidina kama saari karto lahjadaha marka hadaba raadadkoodii uu bedelmaa waa uu dhalan rug baa ku dhaca tagayur wax la yiraahdaa ku dhaca tagayurkaas oo keena xilliga keena iyo daawada markaasi timaada oo Ilaahay abuuray oo weynaato waxba isbedela sida مثلا waanagi ka soo sheekaynay casharadii hore ku soo qaadanay ee ahaa مثلا guntiinada halka laga xidho oo xagga dambe ah oo garabka ku aadan gadaal xidh baa la oran jiray birgii hore la sidii waqtigu u socday garaaxir gad xidh buu ku soo koomay hada gad la xidhay ma jiray moogta waxa weeyaan tagayurkii ku dhacay ay ku maartay intaas baa ku soo hartay gadxidhka baa ku soo haray marka sidaas lamida ereyada af Soomaaliga ah laftigoodu oo caadiga ah ee magaciisa maxaatiri lahjada maxaatirida ayaaba bedelanta wax badan baa isbedelay sida anaga hadda ereyga aan soo sheegayna qaliir oo kala aan lahayn iyo oo caatada iyo weydka ay u isticmaalaan imika meelaha milyowga qaarkood waxyaalo badan way bedelmaan marka waxaa kaloo jirta marka haddaba lahjad ka duwan lahjadahaas kale oo ka duwan laakiin waa dad Soomaali ah markaad tagtid koonfurta Soomaaliya jubbooyinka weliba jubbada hoose markaad tagtid eriyada jilib ka bilow jubbada dhexe ka bilow laakiin waxaad ugu tagaysaa jubbada dhexe halka la yiraahdo jilib qaabilsan jilib ka tirsan
heleshiid iyo malende iyo fakiya iyo jiija meelo la yidhahdo waa tuulooyin waxaan tirinayo tanzania tuulo la yidhaahdana way jirtaa oo isla eriyadaas ah iyo faanoole waa tuuladii loogu magacdaray mashruucii ballaarnaa ee faanoole loogu magacdaray kasoo tag marka waxaa timaadaa eriyadan mugambo eriyadeeda imow iyo makalango iyo dhulka la yidhaahdo maxaa la yidhaahdaa manamofo iyo waxaad tagtaa halka la yidhaahdo kamtiri kamtanda waxaad arkaysaa lahjad kale oo ka duwan tii lahjadii maxaatirigana way kula wataan lahjad isku qasan oo maay iyo maxaatiri oo la isku milay oo way wataan way ku hadlayaan haddana lahjad kale u qaasa ayaa jirto oo maalan salaantoodo kale maalan onganafi fayanani yani waa salaan marka lama odhan karo ciddiiba aanan ku hadlin lahjadii aad garanaysa adiga aad taqaanay soomaali ma ahan ma odhan kartid waa soomaali isla shabeellaha hoose usoo laabo waxaad arkaysaa gobolka shabeellaha hoose degmada la yidhaahdo baraawe la yidhaahdo waxaad ugu tegaysaa lahjad kale aad ugu tegaysaa oo u qaasa ayaga leh iyo lahjad oo maay iyo maxaa tiri oo kale ah oo isku milan oo laakiin qaabkii ka duwan laakiin waa af soomaali fasiixa aad fahmi kartid haddii aad dhegaysatid oo samir aad ku dhegaysatid soomaalida inta badan dhegaysiga samirkiisa waxa weeyaan samir wax walba inaad samir u yeelatid ayaa wanaagsan aad dhegaysatid ereyga kolka 2 goor lagugu soo celiyo mar saddexaadka waad garan wax weyn maaha lahjada tan u gaarka marka waxa weeyaan mid ayaga deegaan ahaan u qaasa macnaha waa salaantooda khabaariso waxay u dhowdahay sawaaxilin uu u dhow yahay mana aha hadda masana sawaaxili ma aha khabaariso amnagani amani maxaa la yidhaahdaa keni rabini xaggee doonaysaa xaggee u socotaa bimacnaa narsukhini waxaan doonayaa ama waxaan u socdaa suuqa namuskitini waxaan u socdaa masaajidkii waxa weeyaan lahjadaha noocaas way jiraan waa soomaali marka ma ahan mar kalena aan ku celiyo ciddii aanan lahjadaada aanan ku hadlin soomaali ma ahan ma odhan kartid haddaba soomaali ma gogoynaa ma intaan haddana ma kasii yaraynaa ma sii qaybinaa may sababaano lama qaybin karo intaan baaba khatyaan ka taaganaha oo dhowr dowladood oo caalan gooni ah shidan laakiin nasiib waxaan ku leenaha waa nidaam federaalism ah oo maaragtay dunidaba ka jira waa nidaam la garanaya aan u soo laabtay marka lahjadaha lahjadan mayga marka inay aada u facaweyn tahay waxaa jirtay berigii 74 waxaa jiray allahu naxariistay wasiirkii waxbarashada ee soomaaliya mudane gahaydh ayaa la odhan jiray allah raxma shil gaadhi buu ku dhintay uu ku geeriyooday wuxuu sameeyey wax aynan samaynin wasiiradii ka horeeyey walaa kuwii ka dambeeyey muxuu sameeyey dugsi waliba wuxuu geeyey lab waxa la yidhahda laboratory waxa la yidhahda ayuu geeyey dugsi waliba wuxuu geeyey qalabkiisii waxbarashada oo u dhammaystiran ama ha ahaado kii chemistryga ama kii physigiska ama kii mathematicska xisaabta lagu sameynayay ama geometriga dhismaha wax walba wixii oo u dhammaystiran ayuu sameeyey maca jaamacadihii sidoo kale sidaasi lamida af soomaaligii baa la qoro kolkaabaa waxaa la sameeyey manhajkii in lagu bedelo af soomaali haddaba maadooyinka cilmiga raalli noqda maadooyinka cilmiga ah